waxaan arkay nin dhalinyaro ah oo gabar mucaakisaad ku sameynaya mucaakisaadka waxay yiraahdaan waa faduulinta waxaan ahaa gabar buu faduulinaya jidku taagan yahay dhinaciisa gabar buu faduulinaya markaasaan wuxuu intaan ku soo dhawaaday ayaan wacdiyay war heer miyaada muslim ahayn war miyuusa ilaahay ku daalacanay war miyaan laba malag wax ka qoray war miyaada ogeyn ilaahay inaad u tagayso la kulmayso waan wacdiyay buu yiri fafaadat aynaahu indihiisa ba ilmeeyay wuu ooyay wiilkii suu ooyay buu yiri ayuu tu telefoonkiisa wuxuu yiri buu yiri telefoonkaan igala soo xiriir ana telefoonkaan iga qor telefoonkii baan u qoray waan iska iloobay maalmaan iska joogay maalintii dambaan wacay wiilkii markaasuu igu yiri buu yiri bari galab iyo casarki aan kulan waan ku khayr baa tahay wuxuu maqlay صوتك نينكي ugu horeeyay oo uu khayr ka maqlo waajib marka ugu horeyso qofka khayrka ilaahay uu afkiisa kugu qadaro qofka waa jeclaanaysa jacayl aad weyn bari ila kulan wuxuu yiri galabkii baan imid albaabkii aan soo gargaraacay markaas waxa iga furay oday duqa wuxuu igu yiri man anta rahimaka allah wariyata ilaahay ku naxariistay markaas waxaan iri buu yiri hebel baan doonaya wiilkii baan doonaya markaasuu yiri buu yiri oo maxaad ka rabtaa markaasaan iri saaxiibkay u ahaa markaasuu yiri buu yiri carradii qabrigiisa wataas maantaan haddaan soo duugnay markaasaan waxaan iri buu yiri oo aniguba ila hadlay maanta oo soo wacay maxaa ku dhacay markaasuu wuxuu yiri wiilkayga sheekadiisaan kuu sheegaye kaana yujaahiru almacsiya qabla usbuucayn intii 2 usbuuc ka horreysay macsiyada uu la jahri jiray wuu muujisan jiray wuxuu rabo sameyn jiray 2 usbuuc waqti laga joogay hadda asagoo dhan isbedelay soo joogay ninkii ana taqaaniyo ma salaadii buu anagu noo kiciya reerkii buu baraarujinaya khayrkii buu ordaya waan la yaabnay buu yiri markaas waxaan arki jiray asaga oo mar walba u taagan qiyaamul layl oo salaad tukanayo ooyaya markaas wuxuu yiri sidii uu ahaa maanta markii ay la gaaray ayuu wiilkii wuxuu masaajidku ku tukaday masaajidka markuu ku tukaday bada yaqra alquran wayabki quraan buu akhrinayaa wuu ooyaya soo quraanku akhrinayo uu ooyay buu yiri ayuu soo baxay gurigu yimid wuu jiifsaday nafti baa ka baxday markaas wuxuu yiri waxaan ogaaday cunugaas inuu ilaahay u qoray khaatimo wanaagsan